السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالي اسكو سو نقد وناكسن وولاشين ما دقعانود oo in leh waxaan rajeynaa idinku caafimaad qabtiin inaan dib iskugu soo noqonay waana ku mahadsantiin mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad sida quruxda badan ee maalin walba aad igu soo biiraysaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe taa naga hilmaamin adigana fiiriya ku tahay maadaaqna dhiirigelinayo u tahay la share kale asxaabtaadii familkaaga marka aad barnaamijyadeeda ka heshid hadee na socodsiiya maasha allah si kal iyo laable ayaan inkugu mahadsanay asxaabteeda cusub kuwii joogay iyo kuwa cusub iyo kuwa soo socon doona waxaan leeyahay thank you asxaabay maanta waxaan rabaa videoga inaan ku dheeraado ma rabo laakiin maadaama su'aalo oo mar walba lagu soo celiyo aan rabaa inaan maanta in kaga jawaabo marka su'aalaha dhan su'aalo qaar ma la yacni qaar xogaa aad rabin oo private iska ah macnaha dadka moogtaa badan waxay iska jeceliin privacy-ga dadka su'aalaha qaaska ay jeceliin marka su'aalahaas maadaama aad wixii qaasa ama privacy ama wixii xogaa qaab daran waan ka boodaya laakiin wixii macquula qaar TikTok ka soo qaado qaar Facebook-ga qaar Snapchat-ka qaar Instagram-ka wixii marka wixii macquulan ka soo qaadanaya oo intii karaankayga ka jawaabi kara waxyaabo qaar waxaa jira personal ee dadka isu weydiiyeen oo inaan ka hadla aanan jeclaysan because qof walba dee adduunka ma ahan moogtahay wax walba social media ma ahan moogtahay adduunka waxaa jira wax la yiraahdo privacy inkastoo adduunka ayaantaan privacy uusan kala qarsooneyn laakiin haddana waxaa jiro qofka gooni u ah privacy oo sometimes inuu ka hadlo uusan jeclayn marka laakiin waxyaaba iska caadiyo normal inta ogtihiin qofka wax iga weydiiyo sidaan oo kale waan uga jawaabaya su'aalaha qaar xogaa aad u xanuun badan marka kuwaasoo kale waa ka boodaya ma fahantay because ma jeclo waxyaabaha qaar inaan ka jawaabo like sida hadda su-aashii aan aad ooga qiirooda waxay ahayd like hooyadaa ka sheekay camal macnaha ma jecli ilaahay hooyaday aniga way dhimatay ilaahu naxariisto intaa ogeyna hadda ogaada intii ogeydna dee iigu soo duceeya marka ma fiicna macnaha su-aalo badanaa marka aniga weliga allahi anoo hooyaday meel shaani intii joogta anoo dhahayo qof waxaan arkaya dhahaya hooyada ma saas u samaysid hooyada ma ilma u geysid hooyada ma dad xataa waxaan arkay hadallo xoogaa ma fiicna marka qofka ma arkin wax haddaada ka aqoonin waxyaaba wax aada ka aqoonin ha ka hadlin kor uga gudub ma kuu fiicno adigana kuma fiicno anna ima fiicno way dhibaateynaysaa marka halkaas uga gudbaya su-aasha koowaad raba inaan ku bilaabo maanta raba inaan kaga jawaabo waxaa la dhahay su-aashan waa markii 9aad iyo 10aad xataa anoo live ku jiro xataa baa laiga weydiiyey waxaa la yidhi maandeeq adiga single mother maa tahay haddii aad single mother tahayna meeqa caruur ayaad haysataa su-aashaas maadaama dhowr mar ay ugu soo noqotay oo baalka ugu soo noqotay horta aniga alxamdulilah ilaahay awlaada intaa haysana allah siiyo intay haysana allah u barakeeyo alxamdulilah caruur way ii joogtaa intay yihiinba ilaahayda u joogaan marka alxamdulilah waa barwaaqaysanahay famil buuxa ayaa ku jira marka intaasaan su-aashaas halkaas ma dhaafsiinayo intii taqaanana dee way taqaanaa inta aqoonina alxamdulilah intii qof loogu talagalo oo ilaahay siiya waan haystaa alxamdulilah ilaahay annaha ii barakeeyo idinkana intaa haysana allah siiyo intay haysatana allah u barakeeyo single mother maata haddaa kusoo noqdanaa maxaa nin ma ii haysaa adi haddaan ku dhaho single mother ahay su-aashaas waxaa waaye haddii aad gabar tahay you don't need inaa ogaatid I don't know waxa uu ogaanaysa hadaa nin ahaan lahayd haddana su-aalaha dadka badan ay weydiinayo waa dumar waa la yaabay so maadaama aad dumar tahay sagaal question oo dumar ka socdo macnaha what reason single mother maa tahay does not make sense maxaa adoo dumara naag single mother inay tahay inay single tahay you don't wanna know right marka waxyaabahaas oo kaleeto waxyaaba maalaa yacniga waaye marka kor uga gudub su-aashii xigtaa raba inaan ku noqdo su-aashii xigta waxaa laygu dhahay haddii aad maantay aad caruur haysato oo aad su-aashan lifeka laga weydiiyey haddii aad caruur haysato nin aad guursatay ma keeni lahayd guriga ma keeni lahayd mase sida bajaamada wareegta ayaad wareegi lahayd oo hoteelka aad ugu tagi lahayd haa sida bajaamada wareegta maad meelaha wareegi lahayd oo nin haddaad guursatid hoteelka ugu tagi lahayd mase waad guursan lahayd markii aad hooyo tahay horta markii aad single tahay dee qof single tahay oo caruur aad haysan laakiin markaa hooyo tahay laba wadaa kuu furan wadada ugu horeysa kuu furan waxaa waaye inaad ilmahaaga iska korsato oo nin dhan iska ilowdo wuxuu yahay laba soo aragtay aad iska dhaafto oo caruurtaada iska haysato wadadaas waa samayn lahaa inaa caruurteeda iska haysto aan nin dhan iska iloobo haddii aan nin guursanayana aniga nin haddaan guursanayo
kow horta ani ninka banaanka xataa kuma shushukaansanaya ninka waa inuu gurigayga imaadaa sidii gabar loogu talagalay usoo shukaansi doontaa gurigayga imaadaa ciyaalkayga la kulmaa ee isbartaan aniga aan isbarano dee haddii la guursanayana waa guursan lahaa ninkan caruurtayda koleyba marka ugu horeysa waa dhidhibi lahayd marka dambana they don't have a choice way aqbali lahaayeen laakiin inaa intaan baxo nin bajaamo qaado hotel ugu tago haata limaato cadoon waxaas haddaa adiga ku fakeraysidna ha samaynin qof walaalkaana su-aashaas ha weydiinin waa su-aal akhlaaq daran haddii aad guursanaysid gabar weligeed waxaa lagu yaqaana hadday garoob tahay iyo hadday single maabar tahay iyo hadday keligeed tahay waxaa lagu yaqaanaa gabar gurigeeda in loo shukaan tago haddii la guursanayana gurigeed degan tahay ciyaalkeed ku haysato lagu guursado laakiin macnaha su-aashaas yani waxaa ka qurux badneed inaad tidhaahdid macnaha ra'yi nimanka maxaa ka qabtaa because adduunka kuwa xumaaday aniga hadda haddaan guursado maanta ugu talagal inaan guursado nin hotel inaan u tago aan bajaamada sii wado maxaa aniga ma wareejina hay wareerin miya hay wareerin no ninka haddaan inuu sharaf ii guursada guriga imaada ciyaalkayga kasoo mid noqda ciyaalkayga soo dhex gala aniga ilmahayga ogama taganayo mideeda kale dadka dhahaya ama ciyaalka kaa waxeynaya ciyaalka no ada nina ogta inuu ciyaal kaa waxeynayo horta horta maxaa u guursanay ninka nin caafimaad qaba anigu dad xanuunsan ka hadli maayo dadka caafimaad qabaan ka hadlaya okay mideeda kale anigu ninkan aniga ma ilmaha ii dhaykeer ii noqo maan leeya carruurta ma oga tagana waa maya ilmaha ii fiir maan leeya waa maya mideeda kaleeto haddiiba nin qof intaa guriga keentay oo ciyaalkaaga u xadgudbayo inkastoo qofkaas uu xanuunsan yahay laakiin qaladka adiga iskale adiga maalintaad hooyo aa noqotay ayaad waxaad mas-uuliyadda qaaday caruurtaada safetigooda ilaahay ka sokow adiga gacantaada ku jirtaa dariskaa ka ilaaline walaalaha ka ilaaline adeeraa ka ilaaline abtiyaa ka ilaaline qaraabaa ka ilaaline qof walba wax kasto ayaa lagaa raba inaad ka ilaalisid adduunka waa xumaaday mideeda kale gabar kaliya xataa maan weligay gabar isku siyaa loo ilaaliyaa marka nin aa guursatay iyo baalkii taas kaliya ma ahan adiga markaad shahaadada hooyanimada aa qaadatay ayaa waxaa qaadatay inaad caruurtaada ilaaladooda safetigooda maalintaas indhahaaga inay dheeraadaan dhegtaada inaa meel dheer wax ka maqashid dareenkaaga waa inuu fogaadaa aniga nin intaa soo guursada ma dhahayo ilmaha ii fiiri gabdhaha ila joog ma dhahayo dheegkeer iyo ma noqonayo marka wadkaana jaanis uu aniga caruurteeda ku heli karaa no mideeda kale nina ogahay inuu caruurteeda inkastoo dadka alle kala sheegi karin dadka xanuunsan ma la fahmi karaa layiri oo wadaadadii iyo hadda loo galayba laakiin ilaahay naguma keeno horta intay ku dhacdana ilaahay ha u booga dhayo intaysan ku dhicinna ilaahay ha ka hayo marka laakiin ani waxaan dhihi karaa qof gurigaaga joogo cunug gurigaaga joogo in dhibaato qof aa u keento uu u geysto waa adiga dayac kaa yimaaday qofka waa inaad ogaataa xuduudda uu leeyahay waa inuu ogaadaa adna xuduuddaa leedahay waa inuu ogaadaa saas macnaha there's no make sense mideeda kaleta aniga stepfather waa la soo korna waa nala soo koriyeen intaana nala soo okeysiiyeen marka dee horta waxaan guurkan waa mas aad gacanta god la gelaysid hadduu ramas kaa qaniini kara haddii kalena dheemana kaaga soo bixi kara marka guurkana sidaas oo kale waaye qof xuna ilaahay kugu aadi karaa qof fiican dadka dhahayo ma kala sheegi karto qofkan inuu xun yahay inuu fiican yahay marka adiga waxaa lagaa rabaa horta ciyaalkaaga safetigooda ama guurso ama ha guursan gacantaada ku jirtaa adoo aabood uu ku qabo baa haddana xataa waxaa lagaa rabaa inaad ilaalisid marka waxaa waaye ama ha lagu guursado ama yaa lagu guursan maalintaa shahaadada hooyanimada aa qaadatid caruurtaada lambar 1 adaa mas-uulka kaa saaran yahay marka ha ku marmarsiyoonana ninbaa no caruurtaada hooyada ayay mas-uuliyadda ka saaran tahay inaad adigu sida indhahaaga aad u waardiyesid inaad u waardiyesid adaa lagaa rabaa haddaad guursanaysidna sharaf u guurso haddaada kaletana guurka dhan iska ilow laakiin waa la baxaa gabadhaada maxay ku fikeraysaa marka adiga intaa hooya intaa tagtid aniga gabar weyna ii joogto ilaahay ii daysta alxamdulilah markii aniga intaan baxo oo aan nin guursado intaa ilmihii dheker ooga tagto ama maamo ooga tagto ama aaboodba ooga tagto inaa intaan bajaamo qaato aan baxo nin hotel inaa ugu tago markay gabadheeda saas ay ku aqliyaysato oo anoo hadda banaanka manaamada uur ku leh aan ay aragto yaa kuu jeray ilaa aabaheed inuusan dhalin way ogtahay nin aysa guriga aysa ku arkin gabadheeda maxay iska dhaadhicin kartaa maxayse ayada suubi kartaa ilaa gabari waa hooyadeeda waxaad adigu samaysid cunugaana waa samaynaya marka aniga ma raba ilmeyga inaan dhaqan xun usoo jeediyo haddiiba ay garato inaan guursado oo ilaahay garsiyo igu soo dhacda aan guursado waxaa samaynayaa gurigan keenaa ilmeygaa barana this is your life hooyo I know abaa waa kala tagnay aniga kanaan guursanaya maalmaha ugu horeysa waxun yihiin ma la qabsanayo maalmaha marka dambe end of the day nin iyo godkii loo wada lama kala qariyo so end of the day they have to accept way aqbalayaan laakiin marka aniga aan baxo maalin walba bajaamo aan sii bebeeyo hotel ninka ugu tago cunugan yaa dhalay ma oga jinni maa dhalay ani hadhowta gabadheed waxay umalaynaysaa cunug caadiyo meelaha hadhowta ayadana sidoo kale samaynaysaa no I don't want to do that haddiiba aan go-aansado inaan guursanayo si sharaf ha u guursana haddii kale guurka waa iska daynaya kaas guur lama dhaho waa tumashaan u aqaana aniga nin inta la isguursado hotel la isku raaca aniga tumashaan u aqaana kaas guur uma aqaana guurka saxda la yaqaanay ma ahan
I don't know meel laga keenana haddii aad guur aad ka maarmi weyso si sharaf oo gabar loo guursan jiro u guurso aniga taas aan kugula tali lahaa aniga ma samayn lahaa aniga tuujoosa ii furan inaan guurka iska daayo iyo inaan guursado oo si sharaf leh ilmahayga aan baro aan dhaho you know what this is your step daddy aabahaaga labaad ayuu noqonayaa aabaha cidna kaama qaadanayso waa aabaha kanna waa aniga ninkayga barasho wanaagsan simple is that labada beri ugu horey oo oynayaan maalin saddexaad they will accept laakiin cunugaaga akhlaaq darro kuguma baranayo taas halkaas ugu gudbaya su-aasha kale xigta la weydiiye waxay tahay su-aashan waxay dhahday haddii ninkaaga uu naag guursan lahaa kula guursan lahaa ninkaaga hadduu naag kula guursan lahaa ma ku joogi lahayd mase waad iska furi lahayd waxay ku xiran tahay dee waqtigaas waxaa dareemayo hadda waxaana dareemin inaan ka hadla ma rabi laakiin aniga ra'yigayga wuxuu ilayahay haddii ninkayga aniga aan jeclahay oo aan rabo inaan ku joogo waa ku joogaya banaamada intaa marmaro naag islaameed maxaa xaganaya naagtaa nin iga qaadatay wax ninkaa qaata male ninkaaga asaa edab darro tagay calafaa jiro calafka waxaa ka horeeya ninkaaga asagaa baxay meelaha fiifiiriyey meelaha soo warwareegay asaa gabadhan soo arkooday oo guursaday marka adi laba joysaa leedahay gabardadow inaa ceersatid xaqu ma lihiin laba joysaa leedahay joyska horeyna afkaaga yimtiraada gurigaaga aa dhaqatid gurigaaga edab ku fadhiisid joyska labaad waxaa waaye ninkan waa danaystaa adna inaa ka danaysatid waa intaas kaliya intaas baa kuu furan laakiin inaan gabar meel islaam meelaha ka yaqyaqaysid iyo waa waray nin islaameed aflagaadisid waxaa arkaa kuwa dhahay ninkaa la gubaa iyo naagtaa la dilaa iyo labadaa la isku dilaa maxaa u dilay ninkan adimaa dhashay adimaa lagu guday no adigana adisa looma gudin adi laguma gudin asaga laguma gudin asagana adiga laguma gudin simple haddii aa ku rabti waa ku joogi haddaada ku rabinna waa ka baxee waa intaas kaliya maxaa nin islaameed inaa gubtid iyo gabar islaameed inaa gubtid iyo waa isku guba mid waxaa arkaa dhahaya ninka iyo naagtaba inay isku gubtay ahayd no way why adiga aa karima la u noqonay ninkan asaa joos koraysta jooskiisa let him go simple is that adduunka waa intaas ma u baahnid inaa meelaha aad soo caaraysid okay su-aasha xigta waxay tiri adiga ma noqon lahayd nin naag qaba ma guursan lahayd may aniga taas no nin naag qaba walow kaana wuxuu doona ha ahaado ma guursan lahayd naagtan waxay ogtaa inaan lacag jeclaa waxay tiri hadduu lacag leeyahay ma guursan lahayd soo raacaysa lacag hadduu leeyahay xataa may waa iska hadlaa maahane lacag kasta uu leeyahay ma guursan lahayd nin naag qaba waa nin dheragsan xanjoo rabaa anigana xanja in laiga dhigta ma rabi marka no okay haddaba haddaad ii soo socotay adoo naa qaba no jawaabtu waa no war dhamaaday okay su-aasha kale xigta waxay tiri haddii lagu yiraahdo maxay ahayd haddii lagu yiraahdo yaa dhahay kaas ilmahaaga iyo ninkaaga mid dooro qof dhahayo qof la dhahay maa jiro no way su-aashaas maba imaan kartee wadkaana reasona ku imaan kartaa ilmaha ama ninka mid dooro it's no way ilmaha ani qof idhigi karta male ninkaaga ama carruurtaada mid dooro qof idhigi karta male no waa maqlay ninkaaga iyo familkaaga mid dooro yes waa maqlay laakiin ilmahaaga iyo carruurtaada ninkaaga iyo carruurtaada mid dooro yaa waayo su-aashaas waa qaab darantaa su-aashaas su-aal qaab daran waayo that's not nice ma fiicna because there is no way qof i weydii karta su-aashaas qof i dhigi karta ninkaaga iyo carruurtaada mid dooro why what reason ani ninka iyo carruurteeda maxaa isku meel keenay carruurteeda ina meel yes waa maqlay ninkaaga iyo ciddaada qof dooro waa maqlay but this one does not make sense waxaa la yiri baryahan waxaad la soo gashaa youtube-kaaga adiga iyo faatuush ma horay ayaad isku taqaaneen mase waxduubis ayaad isku barateen faatuush walaashay waay horaa isku dhaqaana weligee is dhaqaane maxaa kale horaa isku dhaqaana faatuush marka waxna waa isla duubanaynaa hadda laakiin hore ayaa isku naqaana waana walaashay kaasan waaye ma fahante barasho wanaagsan ya okay waxa aan su-aashan hadda le ka jawaabay waxaad mar walba ka hadashaa single mother marka waxaan u aragnay single mom inaad tahay maadaama aad single mom tahay ma guursanaysaa su-aashaas waa ka jawaabay I don't want inaan mar kale ka jawaabo iga qalayano okay su-aasha kale xigta waxaa waaye inaad caan noqoto ma jeceshaha
inaa caan ahaa isku malaynaya ilaa caan ma ahayn umusuhayba maxaa tiri inaa caan noqdo ma jeceshahaya inaa caan ahaaba isku malaynaya ilaa hadda caan mihi miya allah ana igaar wixii videoba aan duubayay wixii qararaciga dhehaysay oo caan ma noqon miya inaa caan ahaaba isku malaynaya caan candalaaba iskugu wici jireen jah ya okay inaa caan ahaa isku malaynaye qofaa jecleen maa jiro inuu caan noqdo ya yes aniga laakiin si qaldan ma jecel inaa caan ku noqdo intaa magac raadinaya inaa magacayga loosgaraya ma rabin dil okay su-aashan kale xigta waxaa waaye weli intaad qurbaha joogtay weli waddankaagi Soomaaliya ma ku noqotay sidii aad ooga soo tagtay meeqa sano ayaa America joogtaa America waxaan joogaa 18 sano ama 17 meelahaasaa joogaa wadankii ma ku noqotay maalin walbaa ku noqdaa aniga wadanka mar dhawaa iigu dambeysay wadankii maxaa ugu noqon waaya wadankii qof maa wadankiisa ku noqonaynin ana America iyo Soomaaliyaaba jeclahay hadda duruuf ay ka daba imaado maana mar hore taa inay imaan lahaa haddaa Soomaaliya joogtay haddeertana waa soo socdaaye igu soo dhaweeyay gabdhaha guduudan ya okay su-aashan waa su-aalaha qaar kind of privacy waaye sorry waa ka xumay aada uga xumahay umu salma aada uga xumahay privacy waa su-aashaas inaan ka hadla ma rabi okay waxay tiri waxaad noo soo gelin jirtay iskiinka iyo heerka shaqadaada ma sii wadaysaa mase sida aa ooga hartay shaqadayda kama harin xoogaa bereg yaraan ka qaaday waan iska yara xanuunsaday kabacdina waan mashquulay laakiin hadda baan Soomaaliyaan u socdaa saas markaan u tago shaqaa sharaf leh shaqada way noo bilaabanaysaa alla socod wanaagsan adin ayaa lagu weyni okay su-aasha kale xigta waxaa waaye waa maxay wixii ugu xanuunka badnaa ee kugu dhaca wax badan laakiin midda ugu xanuunka badnayd oo igu dhacday oo ilaa hadda aan nus saac ka mid ah aysan qalbigeysa ka bixin waa maalintii hooyaday dhimatay ilaaha u naxariisto midaasaa igu xanuun badaneed wixii ka dambeeyey oo dhan waxba kama jiraan okay weligaa iyo allaha qof ma jeclaatay qof noocee ah haddii aa ka hadlaysid qof ma jeclaatay yes aniga hooyaday aad u jeclahay haddii aa ka hadlaysid jacaylkan iyo naa ka dhexaysana yes of course qof jacayl lagu dhalay qof jeclaan ma jiro aniga jacayl lagu dhalay daas waa qof u jeclahay marka waa of course dabcan yes waa jeclaa waxay dhahday adiga iyo ninkaaga jacayl ma isku guursatay yes of course jacayl isku guursan thank you su-aashaas of course jacayl naf jacayl haya maargasho caloosha waagi horeeto dhuunta waxaa ahaa qatar xaliimo qalif magool allah u naxariista codkeedoo kale lahaa dulqaadaa codka iga xumeeya ma fahanteen marka igu qaata intaas yartaa waa inii heesi lahay marka jacayl isku guursanay sax okay sodohda ma kuu noosha maxaa sodohdii maxaa ka rabtaa maxaa kugu diray sodohdii ka rabtaa ya maxaa sodohda ma kuu noosha maxaa su-aal miya waxaas sodohda alxamdulilah caafimaadkeeda u jaran alxamdulilah way caafimaad qabtaa bash barwaaqo yaa igu soo duceeya cimriga allah ii dheeraya okay waa salaamadihiin waxay tiri tan haddii lagu yiraahdo su-aashaas no ma soo sheegayo intaas ka badan waa qalbi taabad waxaa waaye su-aalaha qaar qalbi taabad waaye marka su-aalaha qaar xoogaa maanta intaasaa ku ekeynayna because aaday u dheeryihiin ma raba inaan kusii fogaado laakiin waxyaalo waxaan rabay inaan su-aalaha ka jawaabi karo baraaweysay iga ahaayeen marka laakiin su-aalo badan oo aad u dhib badan ay soo weydiisan because inaan kala socsoco waqtigaa igu yar marka insha allah mar dhana idii kala soo sooci doonaa laakiin xoogaa inkastoo ay privacy u badan yihiin waxyaabaha privacyga ma fiicno waayo qofka privacygiisa inaa weydiisad that's not make sense to you laakiin waxyaabaha kaleeto youtube caana marta inaa noqotid iyo weligaa qof ma jeclaatay iyo soomaaliya goormay kugu dambeysay yes it's normal laakiin waxyaabaha privacyga sida hadda tan oo kaleeto there's too much way privacy waaye mana fiicna waxaas privacyga qaaska in la isweydiiyo caadis ka dhiga asxaabay insha allah waxaan rajeynayaa inaad videogan su-aalahan koleyba wax su-aalo yaro iska generaala waaye
inaad ka wada faa'iidi doontiin insha allah. laakiin su-aalaha kaleeto waa idin kala baandhaynayaa, saas oo in kaga soo jawaabayaa intaan video lamid doona. xataa su-aalaha qaar waxaa ku jira xasatoob goormee noo keenaysaa, faatuush family video badan lasoo duub. labada waa lasoo duubayaa, xasatoob iyo faatuush labadaba waa lasoo duubayaa. mar dhowna dadka ugu soo sareeya caanka inta kusoo qora ayaa interview kasoo qaadanaya, qoftan wariye caanay noqoto, ma fahanteen. marka khayra waa kaasaa wayna salaamaya. haddee soo yaaca sida haddaba quruxda badan nagu soo biirtin, haddana nagu soo biira. dee intaan video lama dib ugu kulmi doona waxayna leeyahay like to iyo share waa xaggiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته وسلامتين.